akuwaaro wadankeena markale waxaanu idin leenahay ramadaanul kariim tartanka ayaa waxa uu ahaa mid wareegiisii koowaad soo dhammaaday waxaana ku tartamayay ilaa iyo 4 group oo ABCD ah oo ay markaasi kala qaadanayeen ardayda kala duwan oo ay ku guda jireen balse markii aan guud ahaan soo wada koobno waxaa soo gudbay ilaa iyo 8 group kuwaasi oo sida aynu idin sheegnay isugu dhici doonaan waxaa soo baxay gruubyada ka yimid 8 markaasi qayb ama 8 group oo ah hilaac oo ku dhici doona horseed daljir oo ku dhici doonaan barbaarta banaadir misbaax oo ku dhici doonaan horyaal ilays oo ku dhici doonaan onkod waa 8 u soo gudubtay wareega labaad siday isugu dhaceenna waa sidaan idiin sheegay daawada ay dhageystayaal waa hilaac oo ku dhacaya horseed daljir oo ku dhacaya barbaarta banaadir misbaax oo ku dhacaya horyaal iyo ilays oo ku dhacaya onkod 8daasi ayaa markaa u soo gudubtay oo 12 ayay ahaayeen 4 ayaa markaa sidaa ku hartay wax badan ayaa tartanka iska bedeli doona markan waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo maadaama waqtiga aad u inoo kulaalay barnaamijyada kalena aynu waqtigoodii gudagalayno axmed cabdulla xasan oo ah gudoomiyaha barbaarta ardayda ama gudoomiyaha barbaarta aragala ee gobolka banaadir soo dhawo ayaan leeyahay axmed cabdulla aad iyo aad waa dhawahay xasan laki dhammaan bulshadana daawanaysana waxaan leeyahay ramadaan kariim waqtigoona haya awgiis waa soo koobayaa maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo gabagabada wareegii koowaad ama wejigii koowaad ee tartanka runtii bulsho badan waxaa isleenahay waxay garatay in dad arday waxbaratay ay ku jiraan dadka baahiyaha gaarka ah qaba dhammaan intii isku hooshay ayaan u mahad celinaynaa dalsan media group iyo bulaal business group annagoo golaha barbaarta aragala-ana waxaan lehayn qabanqaabada tartankan iyo maxaan ku yidhahdaa abaabulka guud dhammaan dhinacyada ka qayb qaatan waa u mahad celinaynaa kooxaha soo baxayn waa u hambaleynaynaa kuwa harna sidoo kale waxaan rajaynaynaa tartan qurux badan inuu maxaa la yidhahdaa xaruntan maalin walba oo ka dhici doono bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rajaynaynaa in si nabad ah ilaahay noogu soo dhammayn doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay axmed cabdulla xasan marka waxaan jecelahay in aan soo dhaweeyay abuukar dayax abuukar maadaama wareeg koowaad uu soo dhammaaday 8 tartan 8 group ay noqdeen ama 8 kooxood ay tartami doonaan xagee hawsha usii socon doontaa maxaa isbedeli doona berito ma jira wax tartan ah haye waaya waa mahadsantahay xasan runtii 8 koox ee hadda isu soo hartay waxaan u rajaynaynaa waqti wanaagsan waxaan rajaynaynaa in ka hor ciidda uu noo soo xirmi doono tartanka haddii allah uu dali uu raalli ka dhigo su-aaluhu waxay ahaan jireen 12 sidaa daraaddeed waxaan kusoo koobi doonaa 10 su-aalood oo isugu jiri doona diini iyo su-aalo aqoon guud iyo dhinacyo badan ah oo runtii aan isleenahay maskaxda iyo garaadka dadka tartamayaasha ah ee barnaamijkan uu quseeyo aad bay uga faa'iidaysan doonaan ama u fahmi doonaan maalinta berita ah oo hadduu allah awoodali uu raalli ka dhigo ma jira wax tartan ah oo bixi doona sababa la xiriira tiimka guddiga iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba mas-uuliyiintooda oo iyaguna siyaabo kaloo gaargaara isu arki doona hadduu allah awoodal uu raalli ka dhigo ama waxa ay noqon doontaa cambio nasiina ah kadib ayaa laysu soo noqon doonaa maalinka xiga hadduu allah awoodalihi uu raalli ka dhigo waqti wanaagsan ayaan u rajaynaynaa barbaarta iyo bulaal business group oo barnaamijkan maalgelinaysa guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan mid lamida intaanu ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada